بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رون رماس له oo u dhaxeeya halabooqad iyo dhagxan yacade gobolka mudug degmada gaalkacyo ayaan fariintan idinka soo diraynaa ramaas baa ku yaal ruunkii baa ku yaal geedkii cadayga waa kan shilinkii waa kan quracii waa kan waa barwaaqo waa dul waxaan rajaynaynaa nolosheena adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay barwaaqo iyo janno iyo khayr inuu ka dhigo dhiboo dhanna ina ka qaado fariintan ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن كبوي رب سبحانه وتعالى وحان أسهلني إن لغوان تومو سيدي سبا وافدودي قرآن كاني برشديسا إيو كردقان كيسا إيو بارستيسا إيو هرقلنتيسا فافنتيسا كل إلهي باس أخري أو فدودي برشديسا آد بأسهلنتهي أو نبيرتهي وحياب له qur'aankaas waxaa dhici karta qofka farta qoraalka akhriska ah si fiican u yaqaana in uu 2 bilood 45 bari bil gudaheed gabigiisaba uu dusha ka xafidi karo 114 suuradoodba oo 30 juz ah oo uusan ku hakan xifdigiisa isaga oo qur'aanku isku soo noqnoqda oo mutashaabihaat aayada isu eg leh oo lagu gadman karo ilaahay baa dadka u sakhiray ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur'aanka barashadiisu aad bay u sahlan tahay xifdintiisu aad bay u sahlan tahay fahamka macnihiisu aad buu u sahlan yahay ku dhaqanka ahkaamtiisu aad bay u sahlan tahay ummadihii hore ahkaamta iyo waajibaadka la saara wax adag bay ahaayeen oo qalafsan diintan ilaahay baa gabigeedaba wax sahlan ka dhigay wuxuu rabbigeen leeyahay subxaanahu wa tacaala maa yuriidu allahu liyajcala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay wax dhib iyo culaysaba diinta idinkama dhigin ilaahay baa idin fududeeyey hadday sidaa tahay fariintani dadweynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba way ku socotaa waxayna leedahay qof kasta oo Soomaaliyeed qur'aanka wuu baran karaa wuu xafidi karaa diinta iyo kutubta iyo cilmiga wuu baran karaa wuu xafidi karaa way u sahlan tahay sheekada la yiraahdo anigu marka aan qof weyn noqdo oo daa carabka ay cuslaanayo wax ma baran karo waxba kama jiraan ilaahay qur'aankan iyo diintan wuxuu u soo dejiyay dadka waaweyn oo aqliga leh buu ilaahay kula hadlayaa saayeel insaana fiican saana xun ee looguma talagelin qur'aankan loomana soo dejin caruurta yaryarka baritaanka caruurta yaryar aan barayno aan xafidsiinayna macnaheedu waxa weeye in ay sii bartaan sii xafidaan si ay hadhow u fahmaan oo u xafidsanaadaan oo ugu sahlanaado laakiin cidda uu qur'aanku la hadlayo waa dadkeena waaweyn oo xilku uu saaran yahay arrinta waa isla fahamno oo ilaahay doonaya inaan hadalkiisa baranno oo fahamno inta haddaan qaadanay waxaa la ogaaday qofku inuu diinta qur'aanka si dhib yar u badan karo carabka cuslaaday iyo waa weynaadayna ma jirto sababtoo annabiga qur'aanka lagu soo dejiyay 40 jir buu ahaa dadka rumeeyay oo raacay dhalinyaro badan ha ku jirto laakiin dad waa yeela oo timuhu cad yihiin baa ku jiray habraha ku jiray odayaal baa ku jiray dad dhaxdhaxaada ku jiray kulligoodna qur'aankii waa barteen ama ha wada barteen ama qayb ha barteen taasi waa qodobka kale qofku wuxuu jecel yahay wax dhow in loo sheego oo aan ummado kale iyo meelo kale aan tusaale looga dhigin tusaalahan dhow waxa weeye nin la yiraahdo professor Cabdiraxmaan Karamardha oo culimadii Soomaaliyeed oo kulliyadii la foole qaybta luqada carabiga macallimiinteedii maamulkeedii kamid ahaan jiray ayaa magaalada Muqdisho wuxuu ka sameeyay barnaamij dadka luqada carabiga si balaash lagu barayo rag buu baray luqada carabiga wuxuu kula heshiiyay bulshada inay iyaguna si balaash oo aan wax laga qaadan ay dadka ku baraan marka arintii baa laga shaqeeyay tijaabooyinkii soo baxay waxa kamid ah habar 56 jirta ayaa farta loo bilaabay markaasaa loo dhameeyay si fiican markay u baratay baa qur'aanka la soo qaaday dhaxda laga kala furay waxa lagu yiri eeda akhri markaasay akhriday waxa la yiri eeda wax akhrida ma garanaysaa maya eeda qur'aankii baa akhriday habartii waa iska oyday waxa jiro oo haduu saa u sahlan yahay awal dhan maxaa loogu sheegaydan aan baranay taa qisay ahay qisadaas anoo haysta ayaan internetka waxaan ka akhriyay habar 27 jirta in odagii ka dhintay markaasay caruurteeda gabar u yarayd oo xaafidul qur'aan oo reer labayla degtay qur'aanka inay xafido iyo tafsiirkiisa ay bilowday 10 sano markay wadayga qur'aankii xafiday maca tafsiirkiisina waa baratay 82 sano iyada oo jirta ayay arintaas ka soo jeesatay habartaas 27
iyadoo jirta bilowday 82 waa ku dhamaysay carabkeediina ma cuslaan qisadaasaan marka arrintaa in dadka carabiga iyo la baro baan shiikha kala shaqeeyay Kismaayo Baydhabo gaalkacyo galdogob garoowe qarno boosaaso burco laascaanood ceel afweyn maxaan ku iraahdaa ceel afweyn ma aha magaalada la yiraahdo berbera hargeysa magaalooyin badan baa arrintii ka sharxay oo aan dadkii ka dhaadhicinay marka intaan orolihii waday magaalada boosaaso markaan marayay ayaan labadan qiso ka sheekeeyay habarta 65 jirka ah oo quraanka sida dhibta yar u baratay farta iyo qoraalka dhamaysay markaas waxa ka sheekeeyaa 65 jir iyo 727 ka jirtay nin oo ragii kamid ah wuxuu yiri oday hebel la dhaho cali hebel oo reer ceeri gaaba aha ayaa xilligii kacaanku uu dadka ku qasbay far Soomaaliga iyo waxyaabahaas ayuu wuxuu yiri waxaan kalaba waa la isku qasbay maan quraanka barto isagoo 80 sano jira ayuu bilaabay markaasuu quraankii ku dhameeyay 80 jir buuna ku bilaabay ilaahay qadarkii odayaashii waxaan weydiiyay ninkaasi quraanka inuu 80 jir bilaabay waa fahmay laakiin markuu dhameeyay imisuu jira way garan waayeen laakiin 80 buu inta ku bilaabay ayuu dhameeyay qisooyinka meelo badan baan kaga sheekeeyay waxaan halkan maanta uga sheegayaa anagoo dhulka barwaaqada oo ruunka rays ramaas kala marayna oo barwaaqada ah inaan Soomaali weyn shanta qaaradood meel ay jirtaba ku iraahdo quraankani waa sahlan yahay caruurteenu adduunka oo dhan waa iyaga tartanada quraanka ku guuleysanay waana caruurtaan dhalay inagoo waaweyn oo aqli leh maxaa u malaynaysaa quraanka xifdigiisa ha lagu dhaqaaqo waxaan ku khatimayaa laba arrimood midda koowaad waxa weeye quraanka barashadiisa waxa caqabad ku ah niyad jabinta dadka moralka laga dilayo oo la oranayo quraanku waa adag yahay suuradan waxa la dhahaa heblaaya qul yaa ayyuhal kaafiruun laba baran karo sabaxa bir waa adag tahay suuradaas waa sami badan oo isku soo noqnoqota dadkii waa la sii bajinayaayo dagaalka intaan la gelin hadii dadka la dhaho nimanka aan la dirirayna waa niman khatara oo dagaaliyahana hub khataray haystaan inaguna waxba ma haysano miskiin baan nahay waa horay ciidankaas ka jabaya waa hubaal waxa loo baahan yahay quraanka barashadiisu waa wax sahlan oo Ilaahay baa fududeeyay ardayda baranaysa yar yar iyo waaweyn rag iyo dumar dal iyo dibad in la dhaho quraanka barashadiisu waa fududahay waa sahlan tahay caruurta yar baa xafidaysa ee u diyaar garooba aan baranay taa waa qodob oo laga daayo moral jabinta iyo waa sabax bir iyo waa adag yahay iyo sami buu leeyahay waa in la joojiyo dhinaca kale waxaan leeyahay quraanka alfaadiisa kaliya in la iska xafido maaha waa guul waa wax weyn oo qiimo badan oo Ilaahay agtiisa khayr looga helayo laakiin waxaan rabnaa quraanka tafsiirkiisa in wax laga barto xadiiska nabiga wax laga barto fiqiga ahkaamta in wax laga barto siiradii nabiga in wax laga barto macallimiinta quraanku ardada hadaysan wax kale u sameeyeen taariikhdii nabiga inta u bilaabaan maalin ba 15 daqiiqo 20 daqiiqo ha uga sheekeeyeen ardadii dhaqankii nabiga ay baranayaan suwar min xayaati saxaaba ha looga sheekeeyo asxaabta nabiga si u dhaqmi jireen ha looga sheekeeyo ahkaamta fiqiga weysada nin quraankii xafidsan oo weysada aan aqoon nin quraankii xafidsan oo aan salaadii tukan aqoon nin quraanka xafidsan oo nabigii iyo asxaabtii aan waxba ka aqoon arinta sax ma aha xadiiska nabiga aan wax ka aqoon aynu sheeka ahaan ugu gudbino aan jecelaysiino nabiga asxaabtii jecelaysiino alayhi salaatu wasalaam quraankii diintu uu salayaan u sheegno aadaabta iyo tarbiyada aan baro ducooyinka aan baro aad iyo aad baan ku wada mahad celinayaa ilaahay quraanka ha noo furo ilaahay hayna fahamsiyo ilaahay dhaqankiisa hayna waafajiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwii baahiyo oo dadka bara oo dadka soo islaamiyo ku hanuuniyo hayna ka dhigo kuwa ku samro adkaysta hayna ka dhigo kuwa ummadda diinta ku hogaamiya ilaahay Soomaali weyn ha ka dhigo jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum arinta Soomaaliya diyaar ma u nahay balan ilaahay ma kula galaa nin walba xoogiisa iyo xoolihiisa iyo aqligiisa iyo cilmigiisa iyo wajigiisa iyo madaxnimadiisa iyo sumcadiisa inuu uga qayb galo diyaar ma u nahay ها أنا سومالي وين متليا السلام عليكم ورحمة الله